Rootigan aad u jeedaan asxaabey waa rooti macaan badan oo jileec ah. Dhaxda waxaa ugu jirto sidaad u jeedaanba dooro iyo qudaar aan isku shiilay. Lagama sheekay karo macaantiisa aad u macaan badan yahay. Ila soo daawada sida aan u sameeyay bilaaw ilaa iyo dhammaad. Asalaamu calaykum asxaabteyda kusoo dhawaada Aisha's Cooking. Waxaa halkan ku haystaa koob caano ah. Koobka waa koob dhaxaad ah. Sidoo kale 2 xabo ukun ah. Qaybta jaalada kaliya ka soo reebay. Waxaan rabaa hadhow dushiina rootiga ka mariyo. 1 qaado sokor ah. Qaadada wax ku isticmaalay waa mid raashinka lagu cuno. Sidoo kale wax yar oo cusbo ah qof walba qiyaastiisa isaga yaqaano. 1 qaado oo leebito ama fixiso ama qamiiriso qof walba sida uu yaqaano. Waxaan ku soo darayaa 2 qaado oo saliid saytuun ah. Intaas ay isku walaaqaynaa. Hadda waxaan ku soo darsanaynaa burkii 2 koob oo bur aan ku soo shubaynaa iyo bar. Burka hal mar buu ku shubayno tartiib ugu shubaynaa hadda waa la raali ka noqdo. Wad u jeedaan idinkaba qaadada ku walaaqaynaa oo isdhexgelinaynaa. Isku walaaqaynaa cabaar. Kadib qaandado kaliya waxa lagu samayn karay qaandado waa iska bixinaynaa. Gacanteena la galeynaa. Tartiib ugu soo daraynaa burka qaybta noo harsaneed. Burka aan ka samaynayno burka cadka ma aha asxaabey waa burka qamadiga. Burka qamadiga ka samaysanaynaa si fiican isku dhexgelinaynaa cabaar in la isdhexgeliyo waaye. Mar walbo si fiican isku dhexgeliso waa mar walbo ku macaada adigane rootigaaga ama sabaayadaada wax walbo haddii si fiican isku dhexgelisid macaan ku noqona iyo jileec. 40 daqiiqo dhigaynaa. Hadda waxaan diyaarsanaynaa wixii aan ugu talagalnay ee aan dhexda ka gelin lahayn. Digsigan waxaa noo saaran saliid saytuun aan ku soo shubay. Markii aan ku shubay idinma tusin iga raali noqda. Basal aan ku soo daray basasha waa basasha cadda waana mid dhaxaad ah. Ma rabno inaan hadda wax kale ku shubno gaduud ilaa ay ka naqanayso ama gold ama brown. Kalarkaas dahabiga ah markay yeelato aad u jeedaan waxaan ku soo shubaynaa hadda dooro aan si yar u soo jarjarnay. Waad aragtaan dooradii aan ku soo darsanaynaa. Intaas oo isku walaaqaynaa si fiican isku dhexgelinaynaa. Basasha asxaabteyda markii si fiican gaduud looga dhigo ama dahabiga aad u macaan badan tahay. Cuntada lagu kariyo inaba lagama sheekayn karo aad u caraf badan tahay. Idinka tijaabiya si fiican isku dhexgelinaynaa kadibna waa dabooleynaa daboolka loo dheereynaa ilaa idin kaligeed ka karkarto. Hadda way soo karkartay. Waxaan rabnaa haddana inaan walaaqno wixii aan ugu talagalnaa korka ugu shubaynaa. Waxaan ku soo daraynaa 1 qaando cusbo ah. Qaandada waa qaadada yariista oo kafeega loogu talagalay. Waxaan kaloo ku soo daraynaa 1 qaado huruud ah. Sidoo kale filfisha shiidan aan ku soo darnay iyadan waxa dhan waa qaandada yariista ah oo loogu talagalay kafeega iyo xawaajiga dhuudhuubka ah oo shiidan. Ina fahanteen rajaynayaa intaas ay isdhexgelinaynaa si fiican isku walaaqaynaa. Maasha Allah tabarakallah aniga idin jooga meeshan waxa waay carafta ka soo baxaysa inaba caadi ma aha. Ma fahanteen. Hadda waxaan ku soo darsanaynaa baradhadan iyo karootadan aad u jeedaan si yar u soo jarjaray. Waa isku walaaqaynaa tartiib isku dhexgelinaynaa. Baradhada waxaan rabnaa iyo karootadaba inay ku bislaato saliid oo kaliya ku shiilno sababtoo ah hadda xataa doorada sidaad arkayseen biyo ma ku darin. Hadda tuun aan ku soo darsanay tuun aan soo xoqay waaye. Si fiican isku walaaqay daboolka u dheereeyay. Waxa huuriska markay ku bislaadaan wax ka macaan badan ma lahan. Hadda inta huuris oo kaliya ayaan iskugu shiilay ama aan ugu kariyay wax biyo ah kuma darin. Hadda kabsar caleen waxa ku daray waa isku walaaqaynaa waa noo diyaar. Ma fahanteen aniga wax ma isticmaalo aan dhahe maraq jumbo qofkii rabo maraq digaag ku bedelan karaa booska cusbada. Hadda waxaan soo qaadanaynaa burkii oo noo nastay ama noo soo qamiiray ilaa 40 daqiiqo. Soo qabsanaynaa. Haddii aad doonto 1 saac waa ka dhigi kartaa ani qamiirka zaidka ma jecli. Burka sidaad u jeedaan aad uma qamiirin soo ma aragtiin. Asxaabteyda soo dhawaada. Sidaas aad u jeedaan aan u soo jarjaraynaa.
waa kana digsigii aan soo diyaarsanay. Inta waxaa noogu jirto basal iyo barbarooni oo si yaryar aan soo jarjaray. Waxa kaloo ku jiro waa farmaajo ama jiis. Ma fahanteen? idinma tusin markii aan jarjarayay. Marka fiidiyowga inuusan nagu dheeraan darteeda saas u sameeyay. Hadda intaan is dhex gelinaynaa. Hal mar inaan dhex gelinaa rabnaa ayagoo wada jir ah. Basasha iyo barbarooniga ma ugu talagalin dabka inaan saaro iyagoo ceeriin rabaa inaan ku samaysto. maxaa yeelay haddii ovenka la geliyo tartiib ay u bislaanayaan. Ma fahanteen? hadda rootigaa samaysanaynaa si tartiib ah ku soo wadaynaa. waa ujeedaan asxaabteyda fudeed waa rootigan uuna macaan badan yahay. waa rooti inaba aan caadi ahayn. si tartiib ah ku diyaarsanaysaa jawi degan waqti badan isagoo kaa qaadanin haddana macaan sidaasaa samaynaysaa labada dhinac saas uga soo laab si uusan kaaga daadan qudaarta. kadib hore haddana usii fidinaynaa waa aragtiin. kadib mididaas iskaga jarjaranaysaa dhac wax ku dhibaayo malahan. soo ma aragtiin? ina fahanteen aan rajeynayaa. asxaabteyda subscribe-ta iyo like-ta intaba ha iloobin. dabcan qaadamaysiine ha iloobina. ma fahanteen? saana ku soo wadaynaa. ina fahantiin aan rajeynayaa. waa easy aad u fudud yahay. sidaana ku soo wadaynaa. hal mar markaad fidisid waxaa loo baahan yahay inaad zaid u wada fidin. maxaa yeelay markii aad soo geliso qudaarta oo aad ku soo shubto kadib oo laabto haddana waxaa loo baahan yahay hore haddana inaad ka fidisid si aad u jarjarto meesha ugu dambeyso. aad maxaa la dhahaye saad arkaysiinba labada dhinacyada ma jeedin sidaan sameynayo. dhinacyada haddii aadan ka laabin dhinacyada uu ka daadanayaa rootiga. hadda horaa loo sii fidinayaa. soo ma aragtiin? kadib mididaada qabsanaysaa dhac 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 wayba isku dhammaatay. ma fahanteen? saasaad waad u jeedin saasaa ku soo wadaynaa. muuqaalka haddii aad ka hesheen asxaabtiin la wadaaga. sidoo kale laagta ha iloobina. iga soo tijaabiye rootigan inaba caadi maaha. waa marka keliya ee aan raashinka ku raaxaysanayo rootiga markaa cunaayo. waqtina ma qaadanayo. ilaahay kuma samdarnaadee. macaantiisana lagama sheekay karo. ma fahanteen? adiga jiis haddii aadan rabin waa iska dhaafi kartaa. aan jiista waa jeclahay. jiistan waa jiis aan saliid lahayn ama dufinta ay aad ugu yar tahay. marka qofkii aan rabin wuu iska reebi karaa. doorada oo sideeda ah oo ku samaysan karaa. qof walba iyo dooqiisa. hadda waxaan isku soo qasnay ukunta qaybta jaalada haddaad aan ka reebayay iyo caano yar tartiiba dusha uga marineynaa rootiga sidaad u jeedaanba. saasaa ku soo wadaynaa. intii rootiga aad waxaan sii marinaysid ama ukunta aad sii marinaysidna waxaa loo baahan yahay foornada inay kuu sii shidnaato ee kuu kululaato. foornadu qabooba marnaba ha iska gelin rootiga. maxaa yeelay adagay ka dhigaysaa haddii foornadu qabooba aad geliso. waa kanaa inaba caadi maaha rootiga sidaan uu noogu soo baxay. waa rooti aan laga sheekay karin. maasha allah caraftiisa iyo jileeciisa intaba anaa idinkaga jeedo. anaan idin dhadhaminayo. laakiin idinkana aragtidoo keliya ka baashaala aragtida. ma fahanteen? asxaabteyda aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina. wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum.